maanta waxaan ka wada hadli doonaa waxyaabo markaas dadka barta cilmiga economiga barta aad iyo aad iskugu qaldaan markay rabaan inay ka wada hadlaan ama markay rabaan inay ka hadlaan aad iskugu qaldaan waxyaabaha waxaa kamid ah farqiga u dhaxeeya economic growth-ka iyo economic development-ka sidoo kale waxaa kamid ah waxyaabaha aad iskugu qalda nominal GDP and real GDP sidoo kale waxyaabaha aad iskugu qalda dadka fahamkoodii aysan aad u fahmin waxaa kamid ah yani farqiga u dhaxeeya GDP deflator and consumer price index maanta waxaan ka hadli doonaa haddii la yiraahdo farqiga u dhaxeeya nominal GDP and real GDP السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan ka wada hadli doonaa waxyaabo markaas dadka barta cilmiga economiga barta aad iyo aad iskugu qaldaan markay rabaan inay ka wada hadlaan ama markay rabaan inay ka hadlaan aad iskugu qaldaan waxyaabahaas aad iskugu qalda marka la baranayo cilmiga economiga waxaa kamid ah farqiga u dhaxeeya economic growth-ka iyo economic development-ka sidoo kale waxaa kamid ah waxyaabaha aad iskugu qalda nominal GDP and real GDP sidoo kale waxyaabaha aad iskugu qalda dadka fahamkoodii aysan aad u fahmin waxaa kamid ah yani farqiga u dhaxeeya GDP deflator and consumer price index maanta waxaan ka hadli doonaa haddii la yiraahdo farqiga u dhaxeeya nominal GDP and real GDP nominal GDP-gu waa gross domestic product-ga wadanka uu soo saarayo ama wadan walba uu soo saarayo asigoo markaa lagu xisaabayo ama asigoo markaa la isticmaalayo waxa la yiraahdo current price asigoo la isticmaalayo waxa noo soo baxa ayaa waxaa la yiraahdaa nominal GDP nominal GDP waa maxay waa total market value for goods and service which measured at the current price tusaale ahaan dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay rabtaa inay xisaabiso GDP-geedii tusaale ahaan 2010kii haddii ay rabto dowladda inay ogaato GDP-ga wadanka haddii ay rabto inay ogaato waxay isticmaalaysaa formalka hore aan u soo qaadanay oo GDP-ga waxa uu la mid ahaa price-ka oo lagu dhuftay quantity-ga so markii aan rabno inaan ogaano GDP-ga 2010 waxaan ku ogaanaynaa waa price-ka 2010 ayaa waxaan ku dhufanaynaa quantity-ga 2010 so markaa u fiirsataan formalkaas ama equation-kaas markaa u fiirsataan price-ka aan isticmaalnay waa the same year oo 2010 sidoo kale quantity-ga aan isticmaalnayna waa the same year oo 2010 so markii ay price-ka iyo quantity-ga ay yihiin at the same year sanadka aan raadinayna GDP-giisana uu yahay that year uu yahay tusaale ahaan 2010 GDP-giisa ayaan rabnay inaan ogaano waxaan isticmaalnay price-ka 2010 iyo quantity-ga 2010 ayaan ku dhufanay waxa noo soo baxaya ayaa waxaa la yiraahdaa nominal GDP nominal GDP waa maxay waa markii ay isleeyihiin sanadka anaga aan raadinayna GDP-giisii aan rabnay inaan ogaano iyo price-ka aan isticmaalayna markuu yahay isla sanadkaasi marka uu yahay sidoo kale quantity-gana uu yahay isla sanadkaas waxa noo soo baxa waxaa la yiraahdaa nominal GDP 2011 nominal GDP-ga noo soo baxay laba option midkood uu noqonaya ama inuu ka bato nominal GDP-ga 2010 ama inuu ka yaraado nominal GDP-ga aan helnay 2010 so increase-kaas iyo decrease-kaas inuu marka uu ziyaado ama inuu yaraaday economically waxaan yiraahnaa ama aan ku qeexnaa ama waxaan dhahnaa inuu marka ziyaado nominal GDP-ga ama inuu yaraado waxaa sabab u ah laba factor ama laba caamil marka inay isbedelaan caamilka koowaad sanadkaas 2011 price-keedii inuu ziyaaday tusaale ahaan badeeca price-ka 2010
inta uu ahaa iyo barayska 2011 inta uu noqday ayaa waxaa badan barayska 2011 ayaa waxa uu ka badan yahay barayska 2010 taasi ayaa waxay sababaysaa nominal GDP-ga 2011 inuu moo noqdo ama inuu bato waa inuu markaa barayska isbedelo ama waxa laga yaabaa barayska inuusan isbedelin laakiin waxaa ziyaaday quantity-ga oo ah sanadkaas wax soo saarkeeni ayaa moo aha wax badan ayaan soo saarnay production-keeni ayaa badnaa taasi ayaa waxay sababtay nominal GDP 2010 inuu moo noqdo ama inuu ka bato nominal GDP 2010 so markii aan rabno inaan ogaano intee in leeg ayuu wax soo saarkeeni uu ziyaaday sanadkan si aan u ogaano isbedelka ku dhacayo quantity-ga isbedelkiisa inta uu la eg yahay si aan u ogaano waxaan isticmaalaynaa wax la yiraahdo real GDP yani si aan u ogaano isbedelkeeni dhanka wax soo saar يعني dhanka wax soo saarka isbedelka aan sameynay sanadkan intuu la eg yahay markii aan rabnay inaan ogaano waxaan ku raadinaynaa wax la yiraahdo real GDP so real GDP waa maxay marka waa total market value of all final goods and service measured at the constant price so price kan isticmaaleyno wuxuu noqonayaa price constant ah so simple marka waxa la isticmaalaa wax la yiraahdo base year price tusaale ahaan Soomaaliya waxay bilowday GDP-geedii inay xisaabto 2015 so 2015 badeeco walba Soomaaliya ay soo saarto barayska ay lahayd ama barayska ay wadatay ama barayska lagu kala iibsanayay 2015 sanadkaasi barayskaasi ayaa wuxuu noo noqonayaa base year so haddii aan rabno inaan ogaano real GDP 2016 maxaan samaynaynaa quantity-ga 2016 anaga aan soo saarnay ayaa waxaan ku dhufanaynaa constant price oo ah base year price oo 2015 ah so 2015 price-kiisi ayaa base year noo ah so sanad walba markaan soo saarayna real GDP waxaan isticmaalaynaa price-ka 2015 ayaan mar kasta isticmaalaynaa so markaa waxaa noo soo baxaya ama dhanka wax soo saarka isbedelka anaga aan sameynay intee in leeg ayaa wax soo saarkeena anaga aan kordhinay intee in leeg ayaa anaga production-keena uu ziyaaday ayaan ku ogaanaynaa so difference u dhaxay waa maxay marka nominal GDP waa maxay waa current GDP ama current year GDP ama current year production kaasa waxa la yiraahdaa nominal GDP real GDP na waa maxay sanadkan imis ayaa wax soo saarkeeni aan kordhinay markii aan rabno inaan ogaano waxaan ku raadinaynaa real GDP laana nominal GDP-ga nooma sheegayo intee in leeg ayaan production-ka ziyaadinay intee in leeg ayaa kobaceeni dhaqaale kor u kacay laakiin real GDP-ga wuxuu noo sheegayaa intee in leeg ayaa anaga sanadkan kobaceeni dhaqaale anaga uu high u noqday intee in leeg ayuu production-keeni uu ziyaaday intee in leeg ayaa anaga economic-geeni uu sii fiicnaanayaa intee in leeg ayuu economic-geeni uu markaa growth uu sii sameynayaa markii aan rabno inaan ogaano waxaan isticmaalaynaa ama waxaan adeegsanaynaa wax la yiraahdo real GDP farqiga u dhaxeeyo nominal GDP and real GDP waa intaas insha Allah video-ga soo socdo waxaan ka hadli doonaa qaabka loo xisaabi doono ama real GDP ayaan ka wada hadli doonaa intii laga gaaray xilligaasi kulanto wacan oo xiiso leh aadan idinkaga mahadcelinayaa fadlan dadka ku cusub channel-kaygii waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe saartaan like-na aad raacisaan kulanto wacan oo xiiso leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo wixii commenti ana waa dhankiina waxaadan fahmin fadlan su'aalaan ii soo weydii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bye bye